wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa raaligelin ka bixisay sawir qariidada Afrika oo la soo galiyo boggooda internetka kaasi oo koonfurta Soomaaliya lagu daray Itoobiya. Hadalka wasaaradda ma sharaxin sida arrintu ay ku dhacday, laakiin waxa ay sheegeen in ay ka xun yihiin raalina ay ka bixinayaan. Qatar oo sheegtay in Saudi Arabia ay ku casuuntay shir degdeg oo carabtu ay isugu imanaysa magaalada Makka Khamiista. Shirka ayaa lagu baaqay in looga hadlo weeraradii lagu qaaday maraakiibtii shidaalka ee Sacuudiga. Qatar waxa ay go'doon ku jirtay muddo dheer oo dalalka deriska ah oo loo haystay eedeymo la xiriira argagixiso inay taageerto taasi oo ay beenisay. Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu taageeray in uu kulan waji ka waji ah uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un si loo xalliyo arrinta dadkii Japan in lagu afduubay Kuuriyada Waqooyi 80-maadkii.